السلام عليكم. soo dhawaada asxaabta. Maanta insha Allah tacaala halkan waxaan usoo fadhiisanay inaan idiin sheegno in imtixaankii biology-ga aan insha Allah mar dhow qaadi doono. Waxaan sameynay codeynta intuu badan waxay codeeyeen inaan imtixaanka sameyno. Runtii horena waa idinkugu sheegay imtixaanka marar badan ayay ka fikireen inaan sameeyo, laakiin runtii markii dambe waxaan idin tashtay adinka, kadibna adinka ayaa go'aamisay inaan imtixaanka qaadno. insha Allah imtixaanka waa qaadi doonaa, weliba insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ku qaadi doonaa imtixaanka. Laakiin imtixaanka waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego. Imtixaanka runtii aad iyo aad ayuu adkaa doonaa, taas waxaan rabaa inaad dhagihiina aad u gashataan. Imtixaanka aad ayuu adkaa doonaa. Imtixaanka runtii wuu ka duwan yahay imtixaamada lagu galo Soomaaliya. Adduunka markii la fiiriyo imtixaamada la galo iyo midka Soomaaliya lagu galo runtii aad ay u kala dheer yihiin, waa kala fog yihiin. anaga insha Allah standard waxaan isticmaali doonaa oo caalami ah. Imtixaankan waxaan u qaadi doonaa insha Allah hab caalami ah. Weliba waxaan rabaa inaad ku bishaaraysatiin in aan bixi doono shahaado, because imtixaankaas waxaa ogahay ninkii ka gudbo inuu noqon doono nin maadadaas meel saaray, maadooyinka kalena u gudbi doono insha Allah. marka waxaan ku bixi doonaa shahaado, weliba shahaado aad u fiican, laakiin waa ninkii imtixaanka ku baaso. kaliya waxaa sii doonaa shahaadaas qofkii imtixaan ku baaso buundo fiican keensado. imtixaanka runtii waxaan xusi doonaa 10 qof ugu horeyso ee kaalintooda gasho. insha Allah waxaan soo dhigi doonaa aaladaheena bulshada sida YouTube-ka, WhatsApp-ka iyo Instagram-ka aan la wadaagi doonaa intoodaba. haddii aadan weli naga soo raacin Facebook-ga, follow dheh Facebook-ga, Instagram-ka iyo sidoo kale YouTube-ka haddii aadan weli subscribe saarin. Okay, waxaan rabaa marka halaas inaan u gudbo imtixaankii macluumaadkiisa. waxaa jira marka shuruudo lagaga baahan yahay inaad fulisid, muhiimta inaad fulisid. shuruudahaas waxay tahay imtixaanka wuxuu leeyahay 2 shay. kow waa inaad iska diiwaangelisaa imtixaanka, waa khasab. kow waa inaad iska diiwaangelisaa. 2 waa inaad codsataa shahaadada imtixaanka. Okay, kow marka isdiiwaangelitid waxaa lagu sheegi doonaa, waxaa lagu soo diri doonaa qaabkii cashiradii oo biology oo dhammaystiran lagu soo diri doonaa. inta cashir aan qaadanay oo dhan ayagoo cashiro ah ayaa lagu soo diri doonaa. waxaa lagu dhihi doonaa akhriso, waqti ayaa lagu sii doonaa. then waqti markii lagu siiyo kadib insha Allah waxaa imaan doonta marka waxaa lagu go'aami doonaa waqti imtixaanka la galayo. waa lagula soo hadli doonaa, waxaa lagu sheegi doonaa waqtigaas in imtixaanka la galayo, weliba bishan dhexdeeda ama bishan markay dhamaato bilowgeeda. then markii processka lagu sheegay kadib imtixaankii asaas u gali doontaa. haddii aad baastid shahaadadaada waa heli doontaa. haddii aad liidatidna waa inaad ku laabataa imtixaanka mar labaad. Okay, waxaa jaanis aan kusii doonaa insha Allah in aad imtixaanka markasta aad ku laaban kartid, because imtixaanka group ayaa loo gali doonaa. group kasta markuu galayana groupka kale imtixaanka wuu ka duwanaan doonaa. marka ma sameyn karno hal group kaliya oo imtixaan gali karo, because ardayda aad u badan yihiin. marka waxaa go'aansanay in insha Allah group u sameyno. groupka koowaad markay galaan soo dhamaadaan kadib groupka labaad ayaa gali doono, kadib groupka saddexaad iyo saas ayuu socon doonaa. insha Allah waxaan rajeynayaa in imtixaanka aad ku guuleysan doonto. midka ugu dambeeya idinkaga tagaya waxay tahay information yaa ka helaynaa imtixaanka. xagga comment waxaan soo dhigi doonaa lambarkayga. insha Allah xaggaas ayaan ku xiriirinaa wixii macluumaad ah, wixii su'aalaha qabtid xagga ayaan kaga jaabi doonaa. kaliya WhatsApp-kayga la soo hadal, fariin igu dhaaf insha Allah. wixii macluumaadna xagga ayaan kugu soo gudbi doonaa. marka group kasto wuxuu leeyahay dad cayiman. haddii groupkaas ka buuxsamo waxay micnaheedu tahay inaad sugi doontid maalmo badan, inaad sugi doontid si group kale aad ugu biirtid. marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad dadka ugu horeeya isdiiwaangeliya aad noqotid. waxaan rajeynayaa insha Allah inaad imtixaanka aad ku baasi doontid, saa ku rajeynayaa insha Allah. inkastuu adeeg yahay, waxaan rajeynayaa insha Allah inaad aad u baasi doontid. waxaan idinkaga tagaa khayr insha Allah.